wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qandi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa eedeymo kulul jeediyay mas'uuliyiinta shirkadda Haas Petroleum oo ka mid ah shirkadaha waaweyn isla markaana ka howlgala qaar ka mid ah gobolada Soomaalida waxaan wasiirku ku eedeeyay shirkadaasi inay maalgeliso jabhad ka soo horjeeda jiritaanka Somaliland jabhadaas oo laga aasaasay Buuhoodle oo kale marka aad tixraacdo ee daba gasho badidooda waxa loo sameeyaa sidii lacag loo heli lahaa maba aha jabhad waxa weeye qaab baa mushtarka kamida halka inanka jooga oo Buuhoodle u dhashay asaan ku korin waxaan xaqiijinayaa halkan aan u sheegayaa dadka reer Buuhoodle marka reer Buuhoodle leeyahay dadka kale ha joogay waa qurba joog waxa weeye reer Buuhoodle aan qurba joog ahayn ninkaasi anigu wuxuu geystay garan maayo waa nin koonfur ku koray waa nin confuse garaysan oo isku buuqsan waa nin ay baqdani ku jirto oo ciidan dhex joog ay taladii noqotay waa nin sidii u noolaan lahaa inuu dad uu abuuray oo jabhada uu ku sheegay inuu dhex fadhiyo tala ka noqotay waa nin baqdin badan oo nafsiyan ay ku jirto oo isku buuqsan waxaan ogahay rag caawiya oo inta badan xamar uga shaqayso waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo Khrushchev oo asalkiisu reer Buuhoodle yahay baa ka mid ah waxaa ka mid ah niman kale oo ilaa hadda aan soo shaac bixin oo lagu xamanayo oo Haas ka mid tahay Haas shirkadda shidaalka ee Haas ay ka mid tahay inay maalgeliyaan iyagoo waliba ganacsato ah waxaa ka mid ah shakhsiyaad kale waxaa in badan dadku ay la hadleen garaadka Buuhoodle garaad Cabdirasaaq oo aanu dardaaran iyo hadal nidhi garaad Buuhoodle intay dagaal ka dhacayay iyo intii dhibi ka dhacaysay iyo intii dan la'aan lagu dagaalamayay way dhacday dad badan baa kaga lumay dan badan baa kaga luntay ana shirkadda eedeeyay ninka Khrushchev lahaa ana eedeeyay wixii la halmaana aniga eedeeyay waxaan dhibaato ahayna Buuhoodle uga filla haddii lacagtaadu ay dhibaato ku keento oo Haas waxay ka ganacsataa ilaa meesha la Sayla ilaa meesha la yiraahdo Koonfur Afrika iyo ganacsataa Soomaali marka laga hadlayo meel ay ka ganacsan ma jirto ninkaasina dab ragga dadka sadarada uu tuuray ka mid yihiin ninka Khrushchev la yiraahdo wuxuu haystaa haddii badankeeda leeyahay meelo xamar ahoo qashinka lagu guro iyo qandaraasyo kale iyo waxaas oo haystaa danna wuxuu mooday inuu Buuhoodle burburiyo ugu dambeyntii waxa uu fariin u diray qurba joogta iyo sidoo kale dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ummadda reer Buuhoodle dibadaha degan ee u qushuucda dal baa la xoreynaya dad baa la xoreynaya meesha Buuhoodle la xoreynaya ninkii dibad joogay reer Buuhoodle bal sheeg wahalkii yaase laga xoreynaya wahalkii waa ma jirto ina falaalugna maalinta la ascaanood la tuurtuur 3,000 baa loo soo diraa 3,000 baa loo soo diraa waa ina falaalug maalinta la ascaanood iyo aageeda tuurtuur 3,000 baa loo soo diraa 3,000 xamar baa looga soo diraa 3,000 markuu 500 ku soo kaxaysto dad wax tuurtuuraya inta kale u qaata Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa